casharkan waxa uu ka mid yahay casharada kooraska Right Excellent CV and Professional Portfolio. Kooraskaas oo lagu baran doono qaabka loo qoro amba qaababka loo sameeyo CV-yo qurux badan oo dhinac kasta ka dhameystiran iyo walibana koofradoodii iyagoo wata iyo sidoo kale qaabka loo sameeyo portfolio-da oo loo yaqaano jaantuska shakhsiyadeed amba in qofkan warbixin dhameystiran ka dhiibto sida muuqaaladii uu sameeyay sawirradii uu sameeyay CV-giisa iyo website-ka gudihiisa ku diyaara waana website online aad ku sameynayso CV-gaagii portfolio-du sidoo kale waxyaabaha lagu baran doono kooraskan waxa ka mid ahaan doona in lagu baro qaabka iyo dariiqada interview-ga loo galo iyo walibana etigiska lagaaga baahan yahay dhaqamada isticmaali doonto iyo qaab ahaantaadaba sad iskugu soo diyaarin doontid interview-ga haddaba cidii danaynaysa kooraskan amba u baahan waxay la soo xiriiri doontaa WhatsApp numberka shaashada hortaada kaaga muuqda hadda. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا لهانتين بكلانتي هبون يسكسر نقد مركبة صاحبيا عشر كينا المانتا وحينكو برندونا how to structure your resume part 1 عم بقاب كي أدقر لهي سي فيجا وقيبتي كوادي حتى بس سي فيجا حتى المركة هوري إذا شيء وحيابها وكوكو بينهاي عم بكون تسكس واحد هاي قدر كوكوان وحسي فيجا لغو قرا your contact كا عم بيور information كا warbixin adiga ka socota amba warbixin adiga ku saabsan san numberkii magacii waxyaabahaas ayaa la your contact information kii waa marka labaad hordhac adiga ku saabsan amba objectiveska ayaa sidoo kale lagu qoraa CV-ga sidoo kale waxaan iyaduna meesha ka maqnayn in lagu qoro education-ka oo noqonayo qodobka saddexaad education-ku waa waxbarashadii aad soo baratay heer jaamacadeed ilaa iyo heerka inta kolba intii loo baahan yahay oo inta badan haddii aad master qaadatay iyo PhD qoriba maysid primary iyo secondary iyo waxyaabaha kale la halmaala inkastoo secondary uu aad u muhiim yahay sidoo kale qodobka afraad waxa weeyaan waxa loo yaqaan professional experience aba wixii aad u leedahay khibrad xeel dheer aba khibrad aad ku tahay takhasus way arag takhasusa wixii aad ku tahay ayaad ku qori doontaa sidoo kale qodobka shanaad waxa lagu qoraa other experience or interest waa khibradaha kale ee aad leedahay iyo sidoo kale waxyaabaha aad xiisaysid ee aad jeceshahay ayaad qodobka shanaadna ku qori doontaa halka qodobka lixaadna lagu qoro technical skills wax la yiraahdo iyo certification technical skills waxa weeyaan skillska amba xirfadaha aad u leedahay iyo sidoo kale certifications iyo shahaadooyinka aad qaadatay technical skillska qodob ayaa soo hoos gala oo waxa weeyaan wixii aad tababar qaadatay waa technical skills sidoo kale wixii xirfado gacanta laga qabto leedahayna waa technical skills iyaguna sidoo kale certification-kana hal shay ayaa soo hoos gala awardka amba shahaado sharaf ha ahaato amba ha ahaato abaalmarin aad ku guuleysatay labadaba certificate-ka waa lagu qoraa haddaad shahaadooyinka haysatid sidoo kale shahaadooyinkii waxbarasho iyo kuwii kalena waad ku qori doontaa intaa markaan halkaa kaga tago qodobka toddobaad ee soo hoos gelaya amba qodob toddobaad oo ku biira ayaa isaguna jira oo isaguna aad u muhiim ah qodobka toddobaad waxa weeyaan reference-ga shayga loo yaqaano amba meeshii lagala soo xiriirayay amba meeshii shaygan lagu hubinayay markaan ku leeyahay meesha lagala soo xiriirayo adiga lagulama soo xiriirayo laakiinse waxa lala soo xiriiraya raggii aad la shaqayn jirtay ee managerada meesha ka ahaa meelihii aad soo martay goobihii waxbarashada macallimiintaadii waxyaabaha caynkaasa ee reference-gana ku soo qoran doontaa haddaba bal aynu halkaa kaga tagno faahfaahintii uu ku koobnaa CV-gu aanaynu u gudagalno inaynu qorno CV-geeni amba inaynu create garaysano laakiinse intaynaan bilaabin inaynu qorno CV-geena amba aynu wax ka bedel iyo wax ku kordhinba ku samayno marka hore waxaynu mid niyadda ku haynaynaa inaynu ogaano shayga amba shaqadan bannaan inaynu marka hore research samayno aynu cilmi baadhista aynu samaynayno iyo research-ka aynu ku soo ogaano qofkani hawl nooceeya ayuu hadhow tole looga baahay inuu shaqadan ka qabto la soo xayeysiiyey amba aad CV-ga u dirayso sidoo kale maxay tahay muhiimadda loogu baahan yahay amba lagu qaadanayo adigoo xog ayaad kadibna CV-ga qaabkan imika aynu sharaxi doono aad u qori doontaa haddaba bal aynu eegno qaabyaaliinka CV-gu u qoran yahay
CV-gu marka hore waa inuu ka koobnaadaa ugu yaraan 6 qaybood oo aan qaybta 7aad waa laga reebi karaya laakiinse ugu yaraan waa inuu 6 qaybood ka u qaad noqdaa 6da qaybood qaybta laga tagi karaya waxay noqonaysaa introduction-kii aad iska bixinaysay haddii aad soo bandhigto professional profile meesha waxa ka baxaya amba hal mid isku noqonaya professional experience-kii iyo introduction-kii labadaas markay isku biiraan CV-ga wuxuu sameeyaa inaad professional profile baan anu qortay laakiin haddaad u baahantiin waad kala qaadi karaysaan laakiin inta badan labada qaybood ee introduction aad naftaada ka bixiso iyo inaad warbixin ka bixiso iyo inaad soo kale xirfadaad waayo aragga ku tahay amba takhasuska aad ku tahay inaad iyadana warbixin ka bixiso labadaas inta badan hal meel ayay isla tagaan haddaba sida CV-gan horta idinka muuqata waxaa halka sare aan ku bilaabay information-kii amba warbixintii ku saabsanayd adiga information-ka dhinaca dhexdana waad dhigi karaysaa dhinaca bidixdana waad dhigi karaysaa amba dhinaca midigta imika u yaallo kale ayaad dhigi karaysaa haddaba laakiinse inta badan waxaa laga ilaaliyaa adresska marka laga taga magaca in ay dhigmaan koornahan imika inoo dooran laakiinse koornaha uu yaallo iyo bartanka intuba waa caadi markaan halkaana intaa kaga tago waxaa qaybta labaad aan u gudbi doonaa markaan ka soo gudbay qaybtii koowaad labadii qaybood aan idiin sheegayay ee professional experience iyo introduction amba objective-kii inaan halkan aan ku qoray oon isugu geeyey waxa la idhaha professional profile professional profile-ka markaa waxaan kaga hadli doonaa waxaan waayo aragga ku ahay waxaan hore u soo sameeyey iyo xirfado badan oon leeyahay academic background-kayga waxyaaba caynkaasaa lagaga hadlaa sidoo kale saynu hore u naqaanay waxay noogu xigi doontaa core skill waxa la idhaahdo amba professional skill waxa la idhaha core skill iyo professional skill inta badan waxay noqotaa xirfadaha aad taqaanid adigu laakiinse xirfadaha dadka qaarkood ayaa u haystaa inay yihiin xirfadaha gacanta laga qabto keliyata xirfadaha hadduu qofku bartay maadooyinka sida theory-ga marketingka maado wal oo la bartaa iyo subject walba iyo shay wal oo lagu shaqeeya xirfad ayay leedahay talo xirfadahoodu maxay noqonayaan customer experience meeting room booking waxyaabahaasoo kale qofku waa maadooyinka theory-ga ee managementka marketingka waxyaabahaasay ayay soo hoosgelayaan laakiinse waa skill amba waa xirfad marka xirfadda taqaaniid ayaad halkan ku tixi doontaa qaabkan imika aan u dhigay waa qaabka ay u dhigaan dadka ka shaqeeya qaybaha design-ka iyo motion-ka iyo waxyaabaha oo inta badan xidig iyo waxyaabaha lagu saleeyaa 5 star qofku markuu yahay oo markuu dad software amba dad system uu ku yahay top ayaa laga dhigaa 5 star waynu qori doonaa cashar ku xiga qaabka loo qorayo min bilow ilaa iyo min dhamaad sidoo kale qaybtan ku xigta ee work history amba sidoo kale amba career summary baad odhan kartaa amba work history waa adu kolba waa shaqooyinkii aad hore u qabatay ayay noqonaysaa qaybta ku sii xigta ee noqonaysaa qaybta afraad qaybtan afraad ee haddaba career-ka amba work history-ga waxaa lagu qoraa badanaa 2 angal inaad ku kala qorto amba qaabka imika inoogu kala dooran oo kale qaybtan hore waxaad ku qori doontaa shaygaagii goortaad bilowday ilaa iyo goortaad dhamaysay kambanigii magaciisii waad ugu sarraysiin doontaa sida halkaa imika inooga dooran sidoo kale waxaad ku hoos qori doontaa xagga hoosena waxaa lagu qori doonaa kambanigan xirfadii aad ugu shaqaynaysay amba xirfadii aad ku shaqo tagtay sidoo kale markaad halkaa work history-ga joogtid waxaa la qoraa 2 shay oo iyaga inta badan qofkii doonaya inuu ku darsado qofkii kalena uu ka tago waa key responsibility iyo key of achievement amba key project waxa weeyaan wixii aad mas'uul ka ahayd markaad kambaniga ka shaqaynaysay si qofkani uu ogaado mas'uuliyadaadii hore mas'uuliyadda dambe ka qaadi karaysana uu ka dhex arko sidoo kale key achievement waxyaabihii aad markaad intaad kambaniga la joogtay aad horumarisay ayaa iyadana la qoraa laakiinse labada point waad ka tegi karaysaa haddii kalena waad qori karaysaa sidoo kale education-ka ayaa ku sii xigi doonta noqon doontana qaybta shanaad amba education and qualification baad odhan karaysaa education baad odhan karaysaa amba waxyaabo kalena waad odhan karaysaa sidoo kale education-ka waxa iyadana lagu qoraa mar walba labada qaybood shayga haddii aad haddaba education-ka aad wadid amba imikadan lagu guda jiro waqti xaadirkan aad dhiganaysid waxaad odhan doontaa sida halkaa horeba ku qoran present kadibna waqtigii aad bilowday ilaa iyo present ayaad raacin doontaa haddaba waxyaabahaasoo dhan qofkii markaad usoo sheegto waxaa muhiim ah inaad qaybtan 6aad ee imika inoo dooran aad qortid oo loo yaqaano reference-ku waa shayadan meeshii laga soo hubin lahaa managerskii dadkii hore wax kugu soo dhigay iyo dadkii meelaha aad joogtay ugu sarsareeyay ayaad emailkoogii numberkoogii iyo welibana website-koodii aad ku qori doontaa haddaba guud ahaan CV-gaagu
guud ahaan cv-gaagu waxaa la rabaa inaanu ka badan 2 page say doontaba ha noqotee haddaba saynu horeba usoo sheegnay waxaa muhiima intaanad qorin cv-gaaga bilowgiisa inaad ogaatid marka hore shaqadan qofku waxa uu yahay key responsibilitygiisa amba waxyaabaha uu hadhow tole ka shaqayn doono ee uu mas-uulka ka noqon doono ee shaqada lasoo qortay ay doonayaan inuu qofkaasi caynkaa iyo waxyaabahaasoo kale ugu qabto kadib markaas ayaad samayn karaysaa cv-gaaga oo aad uga dhigi karaysaa in adiga oo shaygaa ku taamaya amba le meeshaasaan buuxinaya inaad haddana qorto cv u macquula una buuxin karaya casharkeenan maanta bartaas ayuu inoogu joogaya casharkeenan qaybtiisa labaad waxaynu ku baran doonaa waxyaabaha yaryar ee ku cusub amba aan isleenahay qofkuu ka garan kari waayaya inuu weerka ku qoro cv-giisa casharka ku xigeentan isugu iman doonana waa aniga oo idin leh ismaqal aragti dambe oo xiiso badan